السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وده أدي أدو مهتنتهين maanta waa sabti waana 22 bisha koobaad muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago qoraalkii bartiisa True Social madaxweyne Trump xalay uu ku soo qoray uu yiri Soomaalida haysata TBS ama Temporary Protected Status arintaas ilhaan maxay ka tiri maaheerka cusub oo dhawaan Soomaalida kala qaybiyay Jackie Frey la doortay isaguna muxuu ka yiri dadka cunsuriyiintana way badbaaldegayaan waxay leeyihiin Soomaalida habal la xaaqo TBS horta maxay tahay ilaa intee wadan ayaa la siiyaa dadka wadamada la siiyo dawladdu ma kala laaban kartaa sababahee loogala laaban karaa arrimahaas oo ayaan idin la wadaagaya Trump oo shalay aqalka cad ku soo dhaweeyay maayarka cusub ee magaalada New York loo doortay oo horey ugu tilmaamay in la masaafuriyo inay tahay libana uu sheegay hadii la doorto in lacagta dawladda federaalka ay New York siiso uu ka jaranayo laakiin shalay kulankoodu kulan saaxiibtinimo ayuu u akaa maxay isiraadeen waan idin la wadaagaya Trump oo sidoo kale xildhibaano ka tirsan xisbiga Congress-ka oo dimuqraadi ah uguna baaqay militariga inaysan qaadan amar qaldan ku tilmaamay inay yihiin qaa'inul wadan isla markaana fidna kicinayaan in la dilana ay tahay xildhibaanadii ammaankoodiina hadda aad loo adkeeyayna waan idin la wadaagaya Marjorie Taylor Greene oo xalay si lama filaana u sheegtay Congress-ka inay isaga casilayso toddobaad kadib markii Trump iyo iyada arrintii Epstein Files ay isku la dhaceen madaxweyne Trump oo sidoo kale dalka Ukraine siiyay muddo dhowr maalmood dalabkiisa 28 qodob inay uga soo jawaabaan haddii kalena uu isku dayn doono ayaga iyo Ruushka wixii ay dagaalka ku kala helaan ha ku kala helaan qodobadaasi oo madaxweynaha Ukraine uu yiri inaan saaxiibkeena ugu dhow aan dooranno iyo inaan dooranno sumcadeena ayaa hadda nala kala dooradsiiyay arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore xalay madaxweyne Trump waxa si lama filaana hal mar bartiisa True Social ugu soo qoray qoraalkan uu ku leeyahay gobolka Minnesota oo hadda gudoomiye ka yahay Tim Walz la markaana markii saddexaad uu doonayo hadda inuu tartamo ku dhawaaqay waxa uu yiri waxay hab ama saldhig u noqotay musuqmaasuqa ama isdabamarinta lacagaha waxana uu sheegay aniga oo madaxweynaha Mareykanka ah waxa aan ku dhawaaqayaa inaan si degdeg ah ku joojiyay laga bilaabo waqtigan Temporary Protected Status ama TBS-ta oo barnaamijkaasi dawladdu ay bixiso qaar kamid ah wadamada dadkoodu ay ku soo maciin baadeen Mareykanka la siiyo marka wuxuu yiri Soomaalida Minnesota TBS la siinaya gabi ahaanba waan kansalay wuxuu yiri Soomaalidu gaangis ay noqdeen waxayna qalqal gelinayaan dadka gobolkaasi weyn ee Minnesota ku dhaqan ilka abeys hoos ka xiriiraan maqli jirtay Trump hadalkiisa waxa uu daba socdaa hadalkii taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis oo yiri dadka dhibaatada ka wada Minnesota waa dhalinyarada ka timid bariga Afrika walow markii dambe uu raali gelin ka bixiyay laakiin halkaasi ayuu ka amba qaadaya waxa uu sidoo kale sheegay bilaayin dollar in la lunsaday arrintaasina been ma ahan Soomaalida Minnesota waxaan ognahay kiiskii Feeding Our Future hadda waxa dacwad lagu soo oogay qofkii 77aad waa 77 qof ayuu maraya waa nin wadanka Senegal asal ahaan ka soo jeedo Cusmaan Kamara la yiraahdo 45 jir ah waxana lagu eedeynaya kiisas ay isdamariyihiin laaluush iyo isdabamarin lacageed waxana uu sheeganayay in kun caruura uu quudinayay ninkaas xitaa waxa uu leeyahay goob ganacsi oo la yiraahdo KS ama African Market oo markii tama dhismaha uu ku yaala xitaa iibsaday in lacaga fara badan wadanka uu ka yimid oo u diray ayaa lagu eedeynaya marka 77daasi qof konton kamida waa Soomaali hadiiba aysan ka badnayn dadka kiiskan 300 milyan ta ku eedeysan kiiskii autismka caruurta la qabta xanuunka autismka qofkii ugu horeeyay dambigiisa qirta Soomaali ayuu ahaa walina kuwa kala hadda dacwad dambiye lagu soo oogaya arintii hadda Medicaid-ka oo dadka waayeelada ah dadka drugska laga dhaqay dadka guriye la'aanta ah dadka liita loogu talagalay lacagihii Medicaid-ku ay bixinayeen in guriye loogu raadiyo labada wiil oo Soomaalida hadda waa 8 qof dacwad lagu soo oogay labada wiil oo Soomaalida Anwar iyo Asad waa kuwii dambigooda qirto laba maalin ka hor aan idin sheegay lacag ku dhawaad 3 milyan ayay ku eedeysan yihiin inay qaateen marka musuqmaasuq waa jira Trumpna waa la update gareeyaa wadankan wixii ka socdo subax kasta madaxweynuhu briefing uu leeyahay waa loo sheegaa wax kasto dhacaya marka musuqmaasuqaasi inuu jiro waa wax iska cad oo Soomaalidu hadda musuqmaasuqaasi ay ku lug leeyihiin marka Trump waxa uu yiri dib ha loo diro meeshii ay ka yimaadeen dib ha loogu celiyo it is over waa dhamaatay marka TBS-ta Soomaalidu hadda dadka ama green card haysto ama passport haysto Trump ma celin karo hadii dambi lagu celin karo aysan iyagu galin laakiin dadka TBS-ta haysto hadii ay dambi galaan
dadkaasi si fudud ayaa lagu masaafurin karaa. TPS horta maxay tahay balaan idinla wadaago, temporary protected statuskan maxay tahay ayaan rabaa inaan idinla wadaago. arrintaas markii Trump uu soo qoray maayarka cusub oo hadda doorashadiisii Soomaalidu ay ku kala qaybsantay, waxa uu yiri waxaan garab taaganahay community-ga Soomaalideena maanta, waxaana uu sheegay in markastaba uu gadaal ka taagan yahay, markastaba dhabarkooda uu taagan yahay, macnaha uusan ka jeesan doonin. Ilhaan Cumar iyaduna waxay soo qortay anigu muwaadin Mareykan ayaa ahay, sidaas oo kale dhammaanba Soomaalida intooda badan waa muwaadiniin Mareykan. marka waxaan ku leeyahay nasiib wanaagsan u dabaaldegidda siyaasadda cusub oo aad wax ka bedeshay. waxaana uu sheegtay in saameyn badan aysan Soomaalida ku yeelanaynin, waxaad jeceshahay ay tireen nacaybka, laakiin anagu halkan ayaan joogaynaa, meel uma socono. Ilhaan Cumar ayaa sidaasi soo qortay. TPS waxaa la siiyaa 11 wadan ayaa loo ogol yahay dowladda Mareykanka temporary protected status inay siiso. wadamadaasina laga soo bilaabo, wadamadaasina waxa ay kala yihiin Burma, wadankan Myanmar loo yaqaano, El Salvador, Ethiopia, Haiti, Lebanon, Somalia waa ay ku jirtaa, South Sudan, Suudaanta hadda dagaalka uu ka socdo, Ukraine, Venezuela iyo Yemen. marka TPS dowladdu ma kala laaban kartaa dadkan. TPS tuna maxay tahay? TPS waa temporary protection status la yiraahdaa. qofka waxay u ogolaanaysaa in wadanka uu ka shaqaysan karo si ku meel gaar ah, wadankana aan laga masaafurin karin, laakiin kuma sahlayso inaad ama green card hesho ama muwaadin Mareykan aad noqoto. qaar ka mid ah garsoorayaasha ayaa dadka ku amray wadanka sharci darrada ku soo galay TPS inay qaataan. inta badan qofka looma ogolo kiiskiisa asylumka inuu socdo, laakiin kiisaska qaar waa loo ogol yahay qofku isagoo TPS temporary protection status haysto in kiiskiisa asylumkana uu sii socon karo. maxay tahay marka waxyaabaha in qofka uu u suura gelinayo? waa humanitarian protection, waa qaab bini'aadimo ayaa loo siiyaa dadka ajnabiga ah ee wadanka Mareykanka yimid oo wadankooda aan uusan nabad ahayn oo aan dib loogu celin karin. eligibility-geeda marka wuxuu yahay waa in qofku uu ka yimaada wadamadaasi 11 aan idiin sheegay mid ka mid ah, isla markaana sidoo kalena qofkaasi uu wadanka Mareykanka joogay ka hor muddo dowladdu ay cayimto inta aan loo ogolaanin. TPS wasaaradda amniga gudaha ayaana bixisa. hadda TPS Mareykanku waxay ku eg tahay dadka Soomaalida la siiyay 17 bisha 3 ee March ee sanadka soo socday 2026. Trumpna waxa uu yiri lama cusboonaysiinayo. marka ma saameynayso Soomaalida Minnesota kaliya oo joogto, laakiin Soomaali kasta oo TPS haysto oo gobolka ka mid ah gobolada Mareykanka joogo waa ay saameynaysaa. marka qofka waxay ka hor istaagaysaa in la masaafuriyo, waa uu ka shaqaysan karaa wadanka, social security waa heli karaa, driver license-na waa heli karaa inta badan, laakiin qofkaasi si sharci ah ayuu wadanka ku joogaa, laakiin waa non immigrant status ilaa iyo waraaqdaasi ay ka dhacayso. sidoo kale waxaa jirta maxay yihiin waxyaabaha marka qofka aysan u suura gelinin? sida aan sheegay, green card kuma siinayso, muwaadin Mareykanna kama dhigayso. waqti cayiman ayay leedahay, dowladuna waa ay ku kordhin kartaa ama waa kala laaban kartaa. sida halkan aad ka aragtaan waxaa jirta sidoo kale in marka xaaladaha qaar qofka wadankii uu ka yimid xaaladiisa haddii ay wanaagsanaato, qofkaasi TPS waa lagala laaban karaa, wadankiisana waa lagu celin karaa, dowladuna waa ay gabagabayn kartaa TPS taasi oo gabi ahaanba waa ay joojin kartaa. marka programkan waxaa maamusha dowladda federaalka ah, laakiin waxaad u qoondaysa wadamadaasi wasaaradda amniga gudaha. marka wasiirka amniga gudaha haddii madaxweynaha kula taliso wadankaasi dadkiisa waa lagu celin karaa, TPS laga kansalo, macnaheedu waxay tahay waa laga kansali karaa. marka sidaas ayay TPS tahay. marka waxaan rabay in dadka Soomaalidu ay sidaas ay u ogaadaan. intaasi haddii aan ka gudbo Trump iyo dhaartii uu Soomaalida u dhaaranayay, shalay aqalka cad waxaa kulan ku yeeshay maayarka cusub ee la doortay New York, Zoran Mamdani, iyo sidoo kalena madaxweyne Trump. labada nin intii ololaha doorashada uu socday hadallo fara badan ay isweydaarsan. Trump wuxuu yiri ninkan waa communist, waa socialist, waa muslim, waa in la masaafuriya, waa in la xiraa. xitaa wuxuu yiri haddii la doorto dowladda federaalka lacagta ay siiso waan ka jaranaya. laakiin shalay kulanku markii ay yeesheen kadib arrintaasi arrin ka duwan ayaa soo baxday. Trump waa uu hambaliyay, wuxuu yiri hambaliyay olole la yaab leh, dad la yaab leh ayaad ka guuleysateen. gudoomiyihii hore gobolka New York Andrew Cuomo uu ka mid yahay. waxyaabo fara badanna waan ka simanahay, sida dadka in guryo loo raadiyo, in maciishada hoos loo dhigo. sidaas darteed waxa uu yiri wax badan ayaan ka simanaa. Trump wuxuu yiri ninkan ma doonayo anigu inaan dhaawaco, waxaan doonayaa inaan caawiyo. xitaa waxa laga yaabaa la leeyahay in Trump uu dib ugu soo laabtay New York. Trump hadda sida caadiyan waxa deegaankiisa rasmiga uu yahay marka aqalka cad laga tago gobolka Florida, laakiin markii hore New York ayuu deganaan jiray. marka in xataa uu gacan ka geysto sidii Trump uu dib ugu soo laaban lahaa New York, uu deegaan uga dhigan lahaa. marka waxa uu sheegay inay wada shaqayn doonaan. Trump marka isagu rajada uu ka leeyahay waxay tahay masaafurinta dadka soo galootiga sharci la'aanta ah oo Trump
uu doonayo dad fara badan oo gudoomiyaha gobolka Texas xilligii ku dhawaad 2 sano uu basas soo saaray oo New York keenay in la celiyo qaarka xabsiyada ku jira marka inaan wada shaqeyno faa'iidadeena ayaa ku jirta ayuu leeyahay marka waxa ka soo baxay arrin ka duwan arrintii la filayay shir jaraa'id ayaa aqalka cad ku wada qabteen Trump oo kursigiisa Oval Office ka fadhiyo iyo Mamdani oo taagan Mamdani wuxuu yiri waxyaabo fara badan ayaan ka simanahay waxyaabo fara badanna waa isku khilaafsanahay waxa la weydiiyay sidoo kale Trump wuxuu yiri ninkan Mamdani hadii Netanyahu yimaado ra'iisul wasaaraha Israa'iil New York waan xiraya arrintaasi kama wada hadlin ayuu yiri laakiin aniguba afarteedii sare hore wadanka madaxweynaha ka ahaa sidii aan ahaa ma ihi ayuu yiri waan isbedelay isaguna waa isbedeli karaa marka xitaa mar la weydiiyay Mamdani oo yiri Trump hore waxaad ugu tilmaantay inuu fascist yahay bal ka waran isagoo raba inuu ka jawaabo isaga ayaa ka qabtay iska dhaaf waxba ka jawaabin arrintaas waa dhacdaa marka labada nin kulankoodii waxyaabo aan laga filayn ayaa shalay ka soo baxay saaxiibtinimo ayaana ka muuqatay marka arrintaasina halkaasi aan ka gudbaya waxaa jirtay khamiistii 5 xubnood oo dimuqraadi ah oo kongareeska ku jira in muuqaal TikTok ay soo galiyeen ay militariga Mareykanka ay ugu baaqayaan in aysan qaadanin amar qaldan hadii madaxweynaha uu siiyo Trump arrintaasi aad ayuu uga carooday waxaana xubnahan uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwo fidna kicinaya isla markaana sidoo kale qaa'in wadan marka waxa uu yiri dadkaasi fidnada kicinaya waxa lagu ciqaabi karaa dhimasho oo macnaha in la dilo mararka qaarna maxkamad hal la saaro ayuu yiri walow haddana markii maalmadii shalay ahayd wareys uu siiyay radio uu yiri anigu sidaas u lama jeedin laakiin wuxuu yiri waqtiyadii hore waxa dhici jirtay arrintan oo kale dadka sameeya in la dilo xitaa waxa uu share gareeyay qof soo galiyay bartiisa internetka oo yiri xilligii George Washington dadkan oo kale waa la dili jiray arrintaasi marka waxa la leeyahay hadda xubnahaasi shanta oo dimuqraadiga waxa loo sameeyay security oo 24/7 24 saac ilaalinaya oo taageerayaasha Trump ayaa ugu soo hanjabaya in ay dilayaan xalay waxa la yaab noqotay Marjorie Taylor Greene oo laga soo doortay Georgia degmada 14aad Trumpna arrinta Epstein files ay isku la dhaceen oo Trump xitaa qaa'in wadan uu ku tilmaamay in ay tiri Congress-ka waa iska casilayaan laga bilaabo 5 bisha January ee koobaad ee sanadka 2026 ee soo socda arrintaasi la yaab ayay noqotay Trump arrintaasi waa soo dhaweeyay marka waxay tiri waan iska casilayaa mana tartami doono doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadka 2026 shalay Trump iyo Mamdani intaysan wada kulmin aan raaciye waxa jirtay Congress-ku inay u codeeyeen qaraar ah in la cambaareeyo socialismka waxa uu codeeyay 285 Republicanka 199 ayaa u codeysay dimuqraadiyiintana 86 Republicanka waxa diiday 98 dimuqraadiyiintana waxa diiday 98 laba xubnoodna ma aysan codeynin marka intaysan kulmin ka hor Trump iyo Mamdani ayaana u codeeyeen xubnaha aqalka wakiilada wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale waxa jirta shalay inay soo saartay digniin heerkeedu yahay midka afraad oo 21 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ay leedahay waa qatar ayaan loo safrin Canada-na waa tii soo saartay sidoo kalena 2 maalin ka hor marka digniinahan hadda Soomaaliya ayaan la aadin oo dadka jooganaha isaga soo baxan labada wadan ee Canada iyo Mareykanba waa ay ka sameeyeen yihiin ugu dambeyntii madaxweyne Trump ayaa waxa uu siiyay dalka Ukraine in ku dhawaad inta bishan ka dhiman inay ka soo jawaabaan dalabkiisa ah 28 qodob uu doonayo in dagaalkaasi uu ku xalliyo waxyaabaha la yaab kale oo ku jira waxa kamid ah in horta loo damaanad qaadayo amaankooda Ruushka inuusan mar dambe soo weerari karin waxa sidoo kale kamid ah inay ka sabraan inay NATO ku biiraan damcay doonayeen inay NATO ku biiraan sidoo kale ciidankooda inay yareeyaan oo ay ku koobaan 600,000 in ciidankooda ay ku koobaan waxa sidoo kale ku jirta in dhul hadda ay Ruushku Ukraine aysan ka qabsanin ay Ukraine ka tanaasulaan dhul aan wali la qabsan Trump wuxuu yiri waa la weydiiyay arrintaas wuxuu yiri they will lose anyway dhulkaasi markastaba waa ay lumin lahayn marka waa inay ka tanaasulaan waxa la leeyahay 5 meelood marka loo dhigo dhulka Ukraine meel kamid ah ayaa Ruushka oo heshiiskan siinaya marka arrintaasina dawladda Ukraine waa ay ka biyadiisan tahay madaxweynaha Ukraine Zelensky wuxuu yiri waxa na hor yaala laba dooq mid aan kala qaadan inaan sumcadeena aan ka